haddii aadna soo booqatay like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. Mar kale ayaan ku leeyahay like saar muuqaalka. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahay loobin. Muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa sababta aadan mar kale dhegtaada aadan u gali doonin ama aadan u isticmaali doonin suufka dhagaha. Muhiim ayuu ku yahay muuqaalkan. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto. Intaanan kuu sheegin sababta aadan mar dambe u isticmaali doonin suufka dhagaha, waxaan rabaa bis inaan hal meel ka fiirino xilliga la isticmaali karo. Inta badan dadku waxay suufka dhagaha isticmaalaan marka ay dhagaha cuncun ka dareemaan, taasoo marka ah caafimaad ahaan mamnuuc. Sababta waxaa la yiraahdaa dhaguhu qofka marka ay cuncunayaan waxay dhaguhu soo daayaan dhacaamo. Dhacaamada marka ay dhaguhu soo daayaan dhagaha muhiim ayay u yihiin. Sababtoo dhacaamadaasi waxay sifeeyaan dhagaha. Sidoo kale dhacaamada ay dhaguhu soo daayaan waxay keenaan in dhaguhu ay sameeyaan dhukay aad u fara badan. Dhukaygaas wuxuu ka tarjumayaa in qofkii dhagihiisii wasakh badan laga soo saaray. Marka dhibaatada dadka inta badan ay sameeyaan waxay tahay marka dhaguhu cuncunaan isla markiiba waxay ku ordaan suufka dhagaha, taasoo ah mamnuuc. Suufka dhagaha ku ordin, sababtoo ah suufka dhagaha wuxuu keenayaa in dhacaamadii dhagaha lagu sifeynayay aad adigii laftigaagii intaad suufkii dhagaha geliso aad dhacaamadii soo tirto ayay keenayaan. Marka cuncunka koowaad ma ahan dhibaato. Cuncunka koowaad wuxuu caddeynayaa in dhaguhu ay soo daayeen dhacaamo. Dhacaamadaasna la rabo in lagu sifeeyo dhagaha. Haddii marka dhagtu ku cuncuntaba marka aad qoray ama aad suuf kula orado, waxay keenayaan marka dhagahaagii inaysan sifoobin oo ay dhibaato keento, dhagihuna ku qalalaan, maqalkaaguna yaraado. Waa sax mararka qaar infectionada laftigooda cuncun ay leeyihiin, laakiin maxaa lagu kala sooci karaa labada cuncun? Farqi ayaa u dhexeeya marka. Haddii markuu dhagta ku cuncunto waxaa qasaba marka inaad sugto 3 saac camal, meelahaas inaad sugto ayaa qasaba. 3 saac kadib hadday ku cuncunaan, markaas waxaa qasaba inaad soo qaadato suufka dhagaha oo dhagaha sifeyso. Infection ay noqon karaan markaas. Laakiin haddaysan ku cuncunin, waa dhacaamadii oo shaqadoodii watay ayay ahayd cuncunkii haddaad dareemayso marka. Midda kale oo aan rabo marka inaan iftiimiyo waxaa waaye qaabka suufka dhagaha dadku isticmaalayaan qaladaad badan ka jira. Inta badan marka waxaa arkaysaa qof suuf soo qaadanayo dhagta hore ka gelinaya, lama baahna. Suufka waa aragtay wuxuu leeyahay laba dhinac oo ka cad yahay. Suufka labada dhinac uga yaala qorayga ama caag wuxuu raba ha noqdo, labada dhinacba suuf uga yaala. Waxaa la rabaa ugu yaraan marka inaad suufkaasi biyo ku qoyso inta aadan dhagtaada gelin. Haddaad rabto candhuuf xataa mari waa samayn kartaa, biyo ku qoy kadib dhagtaada ku soo sifeey. Laakiin suufkii oo qallayl ah dhagtaada ha gelin, waa mamnuuc. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inkastoo aad u yar yahay inaad wax badan ka faa'iiday. Haddii aadan hore like u saarin muuqaalka, hadda like saar muuqaalka. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta ha iloobin. Gambaleelkana furo si muuqaaladu kuugu soo dhacaan isla marka aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo booqashadaada labadaba. Wixii faalla ahna qaybta commentiga nagu reeb insha Allah.